warkii xamar wax ka helay xasan inta saddex bilood kale oo haray la joog in maad rayaalo haddii kale wiilasha ciidamadeena ahaa ee aad arkayseen shalay in xasan sheekh loo dhaqaajo booseeg alkacyo garow laga soo dhaqaajay soo ciidanka Puntland soo dagaalamo u dhintay inta uu shaqeynayay ma hadday maalmo mushaar ka qaataan federaal ciidan federaal oo aqoonsan mayno waa ciidan Puntland waliba waxaan jecelahay xuduudda dib ugu soo celino Puntland waligeed waa jiri jirtay kala aragti duwanaan Puntland waxay ku soo calaamaashay in la wada ilaaliyo Puntland waxay ku soo calaamaashay marba cidda joogta in lala shaqeeyo Puntland qiimo weyn bay inoo fadhidaa wiilal badan baa u soo dhintay Puntland dhiig bay ku taagan tahay dhowrkii boqol wiil calbiskaadi nagaga dhintay iyo kunkii ku dhaawacmay soo quruxda maanta inaynu u fadhino iyo dowladnimada inaynu haysano uma dhiman in lagu ciyaaro mid siyaasi oo ka aragti duwani oo yiraahdo wiilashii dalkan ciidamada u ahaa ee horay ugu soo dhintay ee u soo shaqayn jiray in la maanta xasan sheekh bay u shaqaynayaan waxayna ka shaqaynayaan inay Puntland dumiyaan xaasha lillah wiilashaasi ciidamadaas waa ciidamadayadii waa ciidamadii Puntland abaal badan bay Puntland u soo galeen laakiin waxaan leenahay xuduudii dowladnimada ha ku soo noqdeen waxa way khaldami karaan oo banaanka way aadi karaan inta marba dowladnimada Puntland joogtaa waxa xil ka saaran yahay inay Puntland difaacdo inay Puntland ilaaliso waana karnaa inaanu ilaalino laakiin marka xadhiga xoog loo dabciyo waxa dhigta fulayeen la isu qaato aabba xadhiga loo dabcinay suusan u goyn laakiin Puntland dowladnimada wax lagu ciyaar kara ma wala kala aragti duwanaan kara wala ismu caaradi kara annaga laftiga albaabada waa furaynaa inta naga aragti duwan war xeeradu way dhaqaatay soo dhawaadaan leena dowladda iyada maanta joogta waxaan diyaar u nahay cid kastoo naga aragti duwan aan la fadhiisano wiilasha ciidamadeena ahaa ee aad arkayseen shalay in xasan sheekh loo dhaqaajo booseeg alkacyo garow laga soo dhaqaajay soo ciidanka Puntland soo dagaalamo u dhintay inta uu shaqeynayay ma hadday maalmo mushaar ka qaataan federaal ciidan federaal oo aqoonsan mayno waa ciidan Puntland waliba waxaan jecelahay xuduudda dib ugu soo celino our agenda waa kaas siyaasiyiinta timi warkii xamar wax ka helay xasan inta saddex bilood kale oo haray la joog in maad rayaalo haddii kale war baasha ka soo fogaanina noo soo dhawaada rag saaxiib ah dowladnimada wada lahaabayno in badan oo kamid nahay maalin bacid baa joogta baashu taranku isbedelaya laakiin baasha hal ilaa cidii bari rabtay inay xukuntaa waray dadku waa soo jeedaa wallahi nin dhibay inuusan xukumayn demonstration baynu guro asxaab baa la yahay war asxaabta hal la galo waliba asxaabta waa maal galeynaa bilaha soo socdee waa maal galeynaa xisbiyada hal la galo xilliga doorashada la gaarana xisbiyada waa furi doonaaye war ragga qoryaha reereehayo war asxaab u diyaar garooba baashu halkaa ka tagtay baashu halkaa way ka tagtay